ku kala kaxayn karo isku dili karo iri karo wuxuu doonaa ka samayn karo yani ilaa xad baa loo samaystay maraakis dhan oo cilmiya oo baxsiya inay baadi doonaan furuuqda iyo waxa u dhaxdhaxeeya dadka muslimiinta iyo caalamka saddexaad idan wasku wuxuu ogaaday inaan ummad colonization lagu samayn karin la gumaysan karin ilaa iyo ummadda in la qaybiyo laakiin ummad kasta oo la qaybiyo in loo gumaysan karo economically, socially, politically, everywhere, educationally, si walba in loo gumaysan karo. waxay yidhaahdaan culamada funuuntan ka warrama miqyaasyada ummadaha lagu qiyaaso waxaa ka mida bay yidhahdaan haddaad aragta bay yidhaahdeen dad murankiisa xadayn kari waayey waxaad ogaataa waa dad dhimanaya waa cudurrada halista ee bulshooyinka ku dhaca ee sheega geeridoodii inay timi saa daraaddeed bay waxay yidhahdeen haddaad aragto dad marka ay murmaan xadayn kari waaye murankooda oo qaabun u xallili kari waaya waa ummad dhimanaysa bay yidhaahdaan walidalik ba iyagu si aanay u dhiman waxay garteen inay miinisun sameeyaan qaabun inay sameeyaan murankooda ay xal kaga gaadhi karaan walow badhna hala dulmiye laakiin caalamulislaami waxaad moodaa in la xadayn kari waaye murankii inoo dhexeeyey oo uu suurtoobi weyday in xal gaadho laga gaadho waxay yidhahdaan murankoo la xadayn kari waaya waa sign of ignorance bay yidhahdaan waa ummadaha jaahilka waxyaabaa lagu yaqaano bay yidhahdaan dadka aan kobcin waa ka ilaahay qur-aanka muxuu ku tilmaamaya yuhuud baa ilaahay ka warramay qur-aanka markaasaa waxaa la yidhi taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa maxaa lagu cileeyey dalika biannahum qawmun laa yacqiluun baa ilahay yidhi waa dul aan caqliga isticmaalayn baa lagu tilmaamay idan cadamu alcaqli wa cadamu tafakur waxyaabaha ka dhasha waxaa ka mid a in dadku murmo uun oo markaa murankaas un waxooda ku gabagaboobo haddaad aragto dad markaa murmaya un muranka waxa ka dambeeyana waa istilaya dagaal un iyo xoog iyo boob intaa dadka hadday aragtidiisu noqoto waxaad ogsoonaataa ummadda tan jahli kii ugu weynaa inuu haysto jahli aada u badan waa calaamaadka lagu garta bay leeyihin waxyaabaha jahligu uu ku dhaco calaama ka mida calaamaadka lagu garto waxay leenahay waxaynu u baahanay marka haddaynu dad muslimiina nahay inaynu in badan masaladan ka fakarno in badan inaynu eegno murankeenna inaynu xadayn karno hadday taasi dhacdo waxaa dhacaya inaynu guulaysan karno waxaa dhacaya inaynu jiritaan yeelan karno idan abnaa'i saxwa aw abnaa'i alxaraka alislaamiya waxay u baahan yihin inay xadayn karaan murankooda qabaa'ilka soomaaliyeed waxay u baahan yihin murankooda inay xadayn karaan siyaasiyiinta soomaaliyeed waxay u baahan yihin inay murankooda xadayn karaan haddii taa la waayo waxa ka dambeeya un waa inaynu dunno waa sababta aynu wax u wada yeelan kari weynay maanta waxaa laga yaabaa waddan kastoo yurub ka mida inay soomaalidu filqantay organisation inay dhistaan wuu fududyi maalin intaan nin uun yimaado khayr qabi wuu isku ururin karaa laakiin cabsi waxaan ka qabaa un bil kadib inuu dumayo waayo waxaan lahaynin markaynu isqabanno si loo kala baxo idan mar haddaanu jirin marka la isqabto si loo kala baxo uu yahay inaynu isdillo inaynu isashtakayno iyo inaynu kala guurro oo nidhaano jaaliyadaas xun aynu isku qabannay waar mid kale halkaa inooga furo inuu noqdo xalkaynu garanayna hadduu saddexdaa yahay waxba ma wada lahaan karno ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamayo ina kathiira min alkhulaطaa layabغi bacduhum calaa bacd ila aladiina aamanuu waacmiluu الصaalixaat dadka wax isku darsadaabaa ilaahay leeyahy ama dadka isdhex gala inta badani way isku xadgudubtaa waayo bini aadamkaas ka tamaaca lama waayo qaab dadku isugu xadgudbo way isdulmiyaan baa ilaahay leeyahy kuwan qura ee laga soo reebay waa maxay waa kuwa iimaanka iyo camalka suuban laga helay ikhwatii fi lcaqiida muran iyo dhibtii waa ogtiin oo idinkama warramayo dee soomaaliyaatinina soomaalaan ahay marka waynu isla garanaynaa kaa iyo dhibta uu leeyahy caalamulislaami baynu ka nimo muslimiin waxa haysta baynu aragnaa iyo dunida saa loogu gumaysta ay mustadcafiin ugu yihin iyagoo aan dunida laga tiro badnayn oo aan laga xoolo badnayn oo aan laga cilmi badnayn waa sheeko waxa dadka badha isugu sheekeeyaan nawowi baa halkan lagu haystaa within no time baa nawowi caalamulislaami lagu samayn karaa within no time laakiin waxa isweydiinta le yaa ka run sheegaya raba inuu sameeyo waxa isweydiinta loo keliyii wuxuu yahay walaa jaamica carabiya baa jiraysa walaa jaamica islaamiya baa jiraysa walaa soomaaliyaa jiraysa walaa waddan yaroo kasta maanta waa lasii kala burburinaya wasku wuxuu rabaana inuu sii kala burburiyo wasku ma jecla
dunida cid kaloo isu timaada xataa indhayarka iyo kuwa aan diimo badan haysan inay isu yimaadaan wasku wuu ilaalinaya waayo dan isaga uguma jirto laakiin iyagu waxay ku tala jiraan inay isu yimaadaan iyagu waxay ku tala jiraan iyagoo kala afafa kala luqa kala diima waa ka Yurub la isku sii wadaa waa loo sabray ilaahay soo inalama aha wasbiru in allaha ma'a sabirin soo lama laha iyagoo khilaafaadka ogoog haday maanta ku heshiin waayaan waxay ku tala galeen inay sabraan 20 years 50 years intay imika socotay sida Yurub ku taqaan 5 dawladood baa bilaabay maantana waa ogtiin inuu dhowr iyo 10 marayso EU yaa bilaabay yar baa bilowday maanta halkan baa maray Schengen yaa bilaabay yar baa bilaabay maalinba mid waa loo weel tolaya dabeetana waxa lagu tala galaya maalinba si mid loogu yeedhay uu soo gali lahaa ilaa iyo inta laga dhigayo inay mid noqon karaan waa laga yaabaa mar in la yiraahdo jamaarigta aan ka midowno jamaarigtu waa in la yiraahdo taxiska iyo meelaha kan xuduuduna soo yara furo mar in la yiraahdo dhaqaale aan ka midowno euro iyo hal lacag wada yeelano berri waxa la arkaa inaad aragto iyadoo la yiraahdo siyaasadda aan ka midowno oo baarlamaanka kaliya ama ra'iisul wasaare kaliya ama caynkan waa step by step laakiin waxa la rabaa step la qaaday inaanu duminuune xagga in loo sii socdo inagu wax laga yaabaa intaynu xiisoonno maalin qura inaynu madaxa ka bilowno shirkan caawa intaynu isku wada raacno aan israacno aroortunba hal mushkiladoo yar inagu imanayso wuxuu been isku dilaynaa shibilahayna tukin maayo mar isku qabanayna masaajidkuna u dumaya dabatan waayo weynaynu kulanno ururnamaha mushkilada laakiin one problem inaynu xalilo ayaynan awoodeeda lahayn hal mushkilado kaliya inaynu xalilayna awoodeeda lahayn waa fanni runtii u baahan daraasadiisa waa fanni u baahan tarbiyo iyo akhlaaq waa fanni dhaqan u baahan waxay leenahay islaamku xuluul buu masaladan inooga dhigay waxa ugu horeeya islaamku marjac buu sameeyay maskaxyadeeni mar haday iskhilaafayso meel horta marjac oo isagu absolute value wax lagu tilmaamo meel aynan isku khilaafsanayn oo aynu noqonayno waa waxyigii xagga Alle ka soo degay Ilaahay baa wuxuu inoo sheegay inaynan inagu wax badan garanaynin inay isagu wax badan garanayo wallahu ya'lamu وأنتم لا تعلمون با إلهي أنتم أعلم أم الله إلهي باوحو ينوشيغي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إلهي با ينوشيغي والله عليم خبير وفوق كل ذي علم عليم إلهي با صفة العلم ينوشيغتي إلهي با ولا ينبئك مثل خبير شيغتي سيدوان له ورما يعيد دنكو ورما يسامي جرته مدام يتاسي جرته إلهي وحو ينليي أنا وحا absolute values كي ميزان كدبتا ايدين سينايا ايه وحكو ميسامنيسان وحا وباهنتي يون شاي كستوى ميساميسان انا صارتان ونكو اكتان لكن ميزان كي وكم بالا لي أنا ايدين اقبا الهي لينا اسخلاف الدونتان كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه با إلهي dadku mid qura yahay oo aadan baa wada dhalo tawxiid bay ku sugnaayeen waa kala tageen oo gaal iyo muslim iyo waxbay kala noqdeen ilaahay wuxuu leeyahay nabiyaan idin soo diraa digaya oo idin bushaareynaya kutub baan u soo dhiibay xaq ku sugan yahay maxaa sidaa u yeelay baa ilaahay leeyahay liyahkuma bayna an-nas fi ma ikhtalafu fi dadku waxay isku hayaan in lagu kala xukumo baa ilaahay leeyahay anbiyadan iyo rusushan iyo waxyiga waxa loo soo diray inay noqdaan miisaanka inuu noqonayn إلهي باوحو لي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وارمركا مرنتان أرمي سكين قبسا ويدو الله الرسول كيو علي بألا لي سبحانه وتعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الله يما أنت قيامها دار رميستين ذلك خير وأحسن تأويلا إذن كتابك يصنوها ما وحي وحو أيمي إنا غمي ديان arrimaha maamku ina midayn kari waayay arrimaha jira maamku ina midaynayo kuwa lama odhanin kitaab baa leedin ka soo dajiyay scienceska laynama odhan kitaab baa leedin ka soo dajiyay waayo waxa looga inaynu ka midoobi karno haddaad masalada la timaado tiraa waa physics waa caynkan laboratory-gaanu la tegaynaa hadday socon weydo war waa khuraafa lagu leeyahay idan lama odhanin kitaab science-ka idinka warramaa leedin soo dajiyay waayo ilaahay wuxuu ogyahay kan inaynu xal ka gaari karno inay xaqiiqadu caddaan karto كتاب طب لينو ما سو دجين واي waxa la ogyahay hadaynu tajaaribteena isticmaalay inay xaqiiqadu cadaan karto walakin masaa'ilka inaan marnaba gun ka gaari karin ee dhaqaale leh siyaasad leh bulsho leh dhaqan leh
caqiide leh falsafo leh aan marnaba basharku isku waafiqin falaasafadii dunida oo dhammi intaasoo kunoo sannadood bay soo jeegeenoo hal iskuma waafaqsana bal madrasa waaxida ka kaalay madaarista kale madrasa waaxida min madaaris alfalsafa haddaad qaadato mid iskuma waafaqsana idan waxa quree bini aadamku ilaahay uu leeyahay anaa isku kiin waafajinaya waa wixii maanka bini aadam uu awoodi kari waayey inuu isku waafaqo ayaa ilaahay yidhi anaa idin kala saaraya halkay gaala yidhahdeen fartaynu ku kala baxayna gaale waxaa la yidhi xaq iyo baatil ma egno laakiin farta sidaa daraaddeed baa iyaga shay shalay xaaraan ahaaba maantana maxay xalaal ahaa masalan maraykanka khamrigu imse sannadood buu xaaraan ahaa 20 sanoo dhadhow 15 sannadood baa maraykan congress iyo senateka iyo congresska iyo madaxweynaha baytul abid saddexduba isku raaceen bal iftaa caama baa la qaado dadkuna uu ku raacay markaasaa weliba lasii fogeeyo la yidhi distoorka ha lagu daro khamrigu inuu waddanka mamnuuc ka yihi 1933giiba haddana dib loo ogolaaday maxaa isbedelay ma cilmi cusub baa khamriga laga soo ogaaday inuu khayr ku jiro ama inuu caafimaad wax ka taraabo waxba lagama soo ogaan shay quraa dhacay unoo nimankii siyaasiyiinta unbaa arkay dadkii inuu kacay iyo kuwii khamriga cabaya tahriibkiiyo waxa kanoo in dee uu cod waayayo therefore waa inuu xaggu cod ka helayo masalada hadduu cod ka helayo waa inuu yidhaahdaa idoorta anaa sanadka dambe khamriga fasaxaye therefore qaar unbaa soo baxay baarlamaanka iyo kuwana way fasaxeen laakiin islaamku xaq iyo baatil buu kala yaqaanaa cadaalad buu yaqaanaa kaasi waa haabit markaasi uu sugan yahay aragtida bini aadamka ee dimuqraasiga iyo waxaan ku suganay shalay wixii mamnuucaaba maanta xalaala caynkana waa isbedelay waayo xaq iyo baatil kuma sugna cilmi kuma salaysna waxay ku salaysantahay farta la taago ninkii 51 hele tiisuun baa soconaysa waxay doontaa noqon ilaahay baa wuxuu ina leeyahay subxaanahu wa tacaala diinta maxaa loo soo dejiyey yuriidu allahu an yukhafifa cankum wa khuliqa alinsaanu daciifa baa ilaahay yidhi axkaam badan inta alla ka soo warramaa ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay baa wuxuu idinla doonaya inuu nolosha idin fudaydiyo waayo bini aadamka ilaahay abuuray isagoo tamar daran maadaama tamar darra ay jirto waan idin fudaydinaya baa ilaahay leeyahy waxaan leenahay marka ugu horrayn waxaan u baahannay marjiciyadu inay caddahay dadka muslimiintii markaasi waxay ku kala baxaan laba shay mid waa kitaabka iyo sunnaha midina waa wixii shuruuda iyagu dhigteen almuslimuuna calaa shuruutihim haddaynu nidaam masaajidkan u dejinno oo nidaamkaasi uu kitaabkiiyo sunnaha aanu khilaafsanayn ee waafaqsan yahay dadka muslimiinta waxaa saaran inay nidaamkaasi u hoggaansanaadaan oo uu noqdo waxaynu ku kala baxayno oo uu noqdo problem solutionkeenu iyo problem solvingkeenu inuu ku salaysay wixii inoo dejisnaa kaasi waa shay la garanayo laakiin in kaa la aqbala iyaduna dhaqan bay u baahan tahay waxay u baahan tahay waxyaabo badan oo dhaqana waxay u baahan tahay in la helo atarbiya aljamaaciya in dadka la baro wada noolaanshiyaha waxa la yidhaahdo iyo inaan la kala maarmaynin iyo inaad dadka kale wax la wadaagto reer magaalnimada la sheegaa macnaheedu waxa weeyaan inuu qofka la baro wada noolaanshiyo ninka reer baadiye markay isqabtaan muxuu sameeyaa gabadhuu yidhaha naawrka iisoo qabo dee uu ka guuraa in len dhul bannaan oo kaleu helayahay innaga teenu waa tii un waa awrka soo qabadii mal allaaliya markaanu isqabanno waa awrka iisoo qabo waa inaad guurtaa laakiin reer magaalku daarta ka dhinac fuqi mayse maxaad samayn awr lasoo qabtaa ma jirto yacni waa laabud inaad hesho qaab aad qofkan ula dhaqmi karto mushkiladiina aad u xallilan karto waa inaad ku kortaa tarbiya jamaaciya tarbiya jamaaciya waa maxay nadariyaadka ama waxaan la yidhahdo theoryga iyo practicalku waa kala nooc masalan in lagu yidhaahdo dadka in la cafiyaa fiican caynkan aragti ahaan waa wax wada qurux badan leh laakiin marka ay ku qabsato sida aad yeelaysaa waa wax u baahan inaad soo tajribaysay waa wax u baahan inaad muddo isku dayaysay waxa kan oo aad isticmaalaysay aragti kastoo maskaxdaada ku qurux badan macnaheedu maaha dhaqankaagana inay markiiba ka imanayso ee waxaad u baahantahay in tarbiya jamaaciya lagugu kulmiyo walidaalika baa dhaqamada wasku matalan waddankan ka imi gaala wuxuuna way leedahay wax runtii aad ka faa'iidaysan kartana way leedahay waxay rumaysayin wax la yidhaahdo matalan philosophy of educationkooda wuxuu ku salaysayin waxa la yidhahdo some arbiden demoniska dad wax wada lahaan kara ama wax wada qabsan kara ilmaha yar isagoo ku jira elementary schoolka ayaa la baraa xiisad la yidhaha xiisadda wada tashiga hadda waa dugsi hoose
dugsi kalaas saddexaad afraad shanaad ma talu wax ka yaqaana kalaas muuta wax la yidhahdaa jira xiisada wada tashiga arday baa laga dhigayaa kalaaska inuu jeerinka u fadhiisto oo arrimaha go'aamiyo dabeetana inta kalena shuuradii baa la wadaya ra'yi waxaa la isweydiinayaa ardayga habsaama maxaynu ku xukunaabo macalinka la weydiinaya macalinka waxa la oranayaa aamo adigu ra'yi kuma darsan kartid inimadaasi waxay gaadhaan baa lagu xukumaya yararkii haasaan la sameeyay abi warqadaha loo qoro caynkana lagu sameeyo waxbay sheegayaan go'aan bay qaadanayaan go'aankaas sawirada dhinaceeda la suraa dabeetana kaasa lagu dhaqaa yani waa qaab qofkan loo train garaynayo inuu maamul gali karo wax wada lahaan karo cid la negotiate garayn karo waa mas'ala runtii tarbawiya ah inaga waxa laga yaabaa qofku inaanu awoodin ba inuu ku dhageysto inaa wax wada lahaataan daayo bal wajhatu nadar sidaad waxa arkaysa inaad u sharaxdo inaanu awoodin iyadoo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam مثلا xadiidka min xadiis siira kamida oo albanina tahsiininayo nabiga alayhi salaatu wasalaam waxa uu yimi cutba ibn rabi'a oo quraysh soo dirtay oo leeyahay nabiga waxaad kala soo hadashay alayhi salaatu wasalaam arrimahan mashaakil buu ugu hayaaye la soo hadal wuu yimi nabiga wuxuu ku yiri waxaan rabaa arrimo inaan kala hadlo niyow dadkii kala kaxayso waa kana mushkilad baad nagu haysaaye haddaad madaxtinimo waxaan ku doonaysaa buu madax baanu ka dhiganaynaa haddaad xoolo doonayso xoolaanu ku siinaynaa haddaad boqortooyo doonayso boqor baanu ka dhigaynaa haddii buu yidhi waxaan ku hayaajinu ku dardaro ay xanuun tahayna adduun baanu kugu bixinaynaa si lagu daweeyo oo tabiib baanu ku raadinaynaa waxaas ku hadlayay nabi maxamedna wuu dhageysanayay afka kagama boodin oo mu odhan war waxaan muxuu ku hadlayaa wuxuu ku yidhi afaraqta minha ya abul walid ma dhamaysatay hadalkaagii buu waliba ku yidhi hadalkaagii ma dhamaysatay wuu ka sugay markaasuu yidhi ha markaasuu nabigu alayhi salaatu wasalaam quraanku dul akhriyay yani inagu waxa inaga lumay inaynu tala wada yeelanay wax daay xataa